xajka sharci ahaan waxaa la yiraahdaa in Maka loo qasdo oo la aado waqti gaar ah iyadoo la gudanayo acmaal gaar ah. Cumradana sharci ahaan waxaa la yiraahdaa in la booqdo Baytul Xaraamka waqti walba iyadoo la gudanayo acmaal gaar ah. Xajka waa rukniga shanaad ee tiirarka Islaamka. Xajka waa waajib. Ilaahay wuxuu yiri jalla jalaaluhu walillaahi cala annaasi xijjul bayti man istadaaca ilayhi sabiila waman kafara fa ina allaha ghaniyyun canil caalamiin. Ilaahay dadka wuxuu ku waajibiyey oo uu ku leeyahay in ay u xajiyaan beydka Alleh. Qofkii awooda oo waddo u awoodana uu xajiyo. Qofkii diida oo ku gaalooba Ilaahay caalamiinta waa uu ka deeqtoon yahay. Xajka waxaa la waajibiyey sanadkii 9aad ee hijriyada. Xajka iyo cumrada waxa ay ku waajibaan qofka noloshiisa hal mar. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxa uu xajiyey hal mar waana xajatul wadaac, xajkiisa gootinta. Xajka iyo cumrada fadligooda waxaa ka mid ah Rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu dhahay al-cumratu ila al-cumrati kafaaratun lima baynahuma wal-xajjul mabruur laysa lahu jazaa'un illa al-janna. Qofka cumrada uu cumraysta ilaa cumrada kale uu ka cumraysta inta u dhaxaysa kafaaro gud ayay u tahay. Xajka lagu baarinimo sameeyayna abaalmarin kale ma laha ilaa janno ayuu leeyahay. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu kaloo yiri man xajja falam yarfuth walam yafsukh kharaja min dunuubihi ka yawmi waladathu ummuh. Qofkii xajiya oo xajkiisa xumaan iyo fuxsh iyo dembi aan ku samaynin dunuubtiisa ayuu ka baxayaa sida maalinka hooyadii ay dhashay oo kale ayuu noqonayaa. Xajka iyo cumrada shuruudahooda waxaa ka mid ah 1. al-islaamu, qofka inuu islaam yahay. Qof gaala xaj waajib kuma aha, haddii uu xajiyana kama ansaxayso. 2. al-caqlu, qofka inuu caqli leeyahay. Qof waalan xaj waajib kuma aha, haddii uu xajiyana kama ansaxayso. 3. al-buluuqu, qofka inuu qaangaar yahay. Cunug saqiira xaj waajib kuma aha, balse haddii uu xajka xirto waa ay ka ansaxaysaa. al-xurriya, qofka inuu xor yahay, addoon xaj waajib kuma aha. 5. al-istidaaca, qofka inuu awoodo. Istidaacada waxaa la yiraahdaa wujuudu zaad waraaxila, qofka sahaydii iyo gaadiidkii inuu heli karo. Haweenka shardi 6 ayaa dheeraad u ah, waana qof maxram ah waa inuu la socdaa. Shuruudaha qofka naa'ibka noqonayo ama wakiilka noqonayo qof kale ka soo xajinayo waxaa loo shardiyaa 2 shardi. 1. qofka in uu 5 shardi asaga laga helay. 5 shardi hadda aan sheegnay in laga helo qofka. 2. qofka naa'ibka noqonaya oo qof kale ka soo xajinaya waa in asaga marka hore uu asaga iska soo xajiyey oo naftiisa uu ka xajiyey. al-mawaaqiid, meelaha xajka laga xirto waa 2 nooc ayaa loo kala qaadayaa. mawaaqiid makaaniya wa mawaaqiid zamaaniya. mawaaqiid makaaniya oo goobaha xajka laga xirto iyo cumrada waa 5. midda koowaad waa Dhul-Xulayfa, haddana waxaa loo yaqaanaa Abyaaru Cali. Maka waxa ay ka fog tahay 420 kiiloomitir, waxaana ka soo xirta ahlul madiina, dadka madiina degan iyo dadkii ku aadan oo soo mara. 2. miiqaadka labaad waxaa la yiraahdaa al-Juhfa, hadda waxay u dhowdahay Madiinatu Raabiq. Waxay Maka ka fog tahay 186 kiiloomitir, waxaana ka soo xirta ahlu Shaam wa Misr, dadka Shaam ka yimaada Suuriya iyo Urdun iyo Masar iyo dadkii soo dulmara ayaa ka xirta. 3. miiqaadka saddexaad waxaa la yiraahdaa Yalamlam, haddana waxaa loo yaqaanaa As-Sacdiya. Maka waxay ka fog tahay 120 kiiloomitir, waxaana ka soo xirta ahlul Yaman, Yaman dadkii degan iyo dadkii soo dulmara iyo ahlu Soomaal. 4. miiqaadka afaraad waxaa la yiraahdaa Qarnul Manaasil, haddeer waxaa loo yaqaanaa As-Saylul Kabiir. Maka waxay ka fog tahay 75 kiiloomitir, waxaana ka soo xirta ahlu Najd iyo Taa'if, magaalooyinkaas dadka degan. miiqaadka shanaad
waxaa la yiraahdaa daatu cirqi, haddana waxaa loo yaqaanaa ad-dariiba. Maka waxay ka fog tahay 100 kiiloomitir, waxaana ka soo xirta ahlul ciraaq, dadka ciraaq degan, iyo iiraan iyo dadkii soo dulmara. qofkii gurigiisa oo ku yaalo inta miiqaadkan la gaarin, miiqaadkan iyo Maka u dhaxeeya ama Maka degan, xajka iyo umrada wuxuu ka xiranayaa meesha uu degan yahay. kuwaan waxaa la yiraahdaa shantan al-mawaaqiit al-makaaniya. al-mawaaqiit az-zamaaniya waxaa loo kala qaadayaa labo: miiqaatul xaj az-zamaani iyo miiqaatul umrah az-zamaani. miiqaatul xaj az-zamaani waa ashhurul xaj, waa bilaa xajka, waa shawaal, dulqicda iyo wa 10 min dulxija. waa bisha shawaal oo loo yaqaano soonfurka, iyo bisha dulqicda oo loo yaqaano sigitaal, iyo 10ka hore ee bisha dulxij ama bisha carafada. qaybta kale waa miiqaatul umra az-zamaani. umrada ayada waa sanadka oo dhan, bisha aad doonto ayaad xiran kartaa umrada. xirashadu ama al-ihraam, xirashadu waa niyada aad ku galayso camalka aad rabto in aad macnaha samayso. haddii aad umro rabto iyo haddii aad xaj rabto, waa niyada aad ku galaysaa, waxaa la yiraahdaa al-ihraamu.